السلام عليكم guys كسر هذا channel كحكمال ما أنت مرة لبعض حاجة على قصة كلينا نلا وذاقو مدام وقصة هشنتي هراء محي هذا قصة عن حسو ورينيا علماء نبت كمذا نحن على إن نلا وذاقو قصة نحكي صابسنت هاي عنقي كل حدا شيء قبريقة أنا كل مرنا وكعب صدق مرنا وقرنا يبلدين كان إلى دعوة وعبسنه يعني qisadan wiilkii qabriga dhexdiisa ku dhashay ana qabri oo aasan dhexdiisa ayuu ilmahan ku dhashay marka qisadan iyadoo kooban duruusna ka qaadan doonaa waxay ahayd maalmaha kamida Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu isagoo la joogo dadkiisii ayaa wuxuu ka dhex arkay indhihiisa ay qabteen nin muuqaal qurux badan lahaa iyo nin kale oo la socday oo uu u maleeyay mataankiisa inuu yahay macna isku eg aan waxba la kala garanayn wixii howlo ku dhex jiray markuu dhamaaday ayaa labadii nin inuu u tagaa wuxuu yiri nin kamid wuxuu ku yiri ninkan walaalka miyaa ama mataankaaga miyaa ku eka markaas wuxuu yiri maya maxaa ula jeedaa wuxuu yiri waa wiilkayga Sayyidina Umar wuxuu yiri subhanallah ninkan kula dhirar eg oo waxa waaye ilmahan Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu kariimo gaar uu siiyo hadaba Mareykanka waa ka dhacdaa dad badan hooyooyin oo gabdhahooda iyaga la eg oo kale waxa arkaysaa inkastoo daayiraan ay ku dhari karaan niman rag ah sidoo kale oo wiil iyaga la eg la socdaan oo loo maran inay walaalo yihiin iyo wixii la mid ah marka ala kulli xaal wuxuu dhahay sida tuka waxa wiilkaygu markuu dhahay wuxuu dhahay tuka lama kala garto xoolaha xayawaanka ana tuka wuxuu kamid yahay xayawaanka aan la kala garan oo aad isugu eg ana kan hooyada iyo aabaha ma kala garanaysid waxaan u jeedaa xitaa hooyada iyo wiilkeeda ama wiilka iyo wiilkiisa iyo tukaha xoolahaas ma kala garanaysid marka wuxuu yiri sida tuka isugu egyihiin isugu egtihiin markaas waa wax yaa badan u dhahay inuu wiilkaaga uu noqdo iyo waxa kale ka yaa badan u dhahay saa isugu egtiin labadiina hadii oo midkiina uu dhaho maaragtay waxaan qabtay oo meel uu tago oo kii kala uu bedelo maanta ku xigto suurtagal ma aha in laga garto ajaa'ibtaas iyadoo Sayyidina Umar uu la yaaban yahay ayaa wuxuu yiri waxa ka cajiib badan wiilkan wuxuu ku dhashay qabri gudihiisa Sayyidina Umar markii qisooyinka ajaa'ibta badan uu ka faa'iideysan jiray uu dhageysan jiray xikam iyo asraar uu kala bixi jiray marka ninkan hadda aan ka sheekeynayo oo qisada ay qusayso oo aabaha ah waa nin laba sifo badnaa waay laba sifo lahaa waay sifada koowaad uu lahaa wuxuu ahaa nin aad u dhikri badan marka halkan waxaan ka fahmaynaa fadliga uu leeyahay qofka dhikriga badan saaxibu dhikr waana ognahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka inuu leeyahay fadhkuruni adhkurkum xusuusta anna xaaladihiina iyo maaragtay wax alla wixii idin qusayo dhan ana markaas ka faala qaabay macnaha kooban intaas waay way idin xusuusanaya quraanka Ilaahay uu ku amray dhikriga badan يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبحوه بكرة وأصيلا مؤمنين ذاتهن إلهي إن بدن حسا إلهي وحودها مركزي و 24 hours ومعنى هذا دقيقات كست حسا الصباح إنقلب حسا من كان ينديك بدن وها صفة عادي واحد صفة كان وحوها نن أهل الأمانة حافظة لجع عليها وعرب كيسة iyo adimadiisa nabad laga helo oo xaafada ay aad u jecel yihiin akhlaaq wanaagsan iyadoo kooban waana ogtihiin rasuulka kaleeyto wasalaam inuu yiri aqrabakum minni ana majlisan yawm alqiyamah ahsanukum khuluqa qofka oo maalinta qiyaamaha soo ag fariisanayo oo daris ila noqonayo waxa waaye qofkiina idinku dhaqan wanaagsan marka dhaqanka wanaagsan fadliga ay leedahayna qisadana ka fahmayna iyadoo kooban waxa dhacday xaaskiisa inay uur qaaday ninkan ka sheekeynay qisadan markii sagaalka ay gaartay
businessman wuu ahaa. sagaalka markay gaartay ayaa wuxuu rabay inuu aado safar oo business ah. markaas waxay tiri ma sugtid intii oo ilmahan ay ka dhalanayaan maadaama ilmihii koowaad uu yahay oo labadeena aan faraxsannahay. waadna ogtihiin qoyska markii ilmaha koowaad uu soo socdo waa farxad ugu weyn sababtoo ah nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyo. nicmatu diin kadib waxaa la yidhahdaa waa nicmada caruurta. markaasi kadib waxaa dhacday wuxuu dhahay arrin adag oo muhiim aan ka baaqan karin aan leeyahay. marka waa igu adag tahay in aan joogo oo arrintaas aan ka baaqdo oo maslaxad ugu jirto reerka iyo annagoo dhan in mustaqbalkeena. maalin kasto doodaasaa dhex maraysa maad baaqatid iyo ma baaqan karo. ugu dambeyntii go-aan u gaaray inuu baxo iyadoo maalmo kaliya u hartay. markaas kadib markuu sii baxayaa waxay tiri haddii aada go-aansatay inaad baxdo waa maalintuu safarka aadayo. waxay dhahday marka hadday saas tahay allahu aclam waxa dhici doono markaa ducey wiilkan ilmahan kule wiili gabar waxyaa lama ogen waagaase ilmahan u ducey inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u badbaadiyay. marka wuxuu sameeyey gacantiisa midig ayaa meeshii uurkuu saaray. wuxuu dhahay ilaahow adaan kaaga tegay ii xifdi. aaminay wada dhaheen safarkuu galay. dhowr bilood u maqnaa. markii danihiisii howshiis uu soo dhamaystay uu soo laabtay. markuu soo laabtay xaafadii wuxuu kusoo aaday waqti galab oo kala ah duhurka kadib meelahaas. wuxuu arkay xaafadaas markaa nidaamkii iyo dadkii qaabkii u noolaayeen. ogaada waqtigan ka hadlayo waa waqtigii kuley waxaan gaari doonaa waqtigii sayidna cumar. sayidna cumar waa qofka qisadan markii laga sheekeynayo in badan lasoo qaato waqtigiisina ahayd. calaa kulli xaal khayluula waqti oo dadka khayluula waxaa macnaheeda qayluula waxaa la yidhahdaa hurdada ama naabka loo yaqaano oo la seexdo duhurka kadib. magaaladoo degan degmadoo degan xaafadoo degan uu u yimid. markaas kadib wuxuu la yaabay gurigiisa oo qofal weyn saaran. gurigii dariskuu u tegay albaabku ku garaacay way ka fureen. markaasuu wuxuu yidhi waa idin salaamay. markaas waxay dhaheen calaykum wasalaam waraxmatullahi wabarakaatu. markuu dhaha assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu idin waxay yidhahdeen wacalaykum wasalaam waraxmatullahi wabarakaatu. isla markiiba waxay ku xijiyeen inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. markaas halkaas musiibaa dhacday. ad garanaysaan hadalkaasi waxaa la yidhaahdaa markii musiiba ay dhacdo waxay dhaheen albaqaau lilah. ilaah u naxariisto xaaskaagii way dhimatay intaad maqneed waa aasnay. marka maadaama ay banaan tahay dhowr bilood kadib tacsiin la gudin karo haddii oo waqtigii munaasabka ahaa aysan dhicin. markaas waxay yidhahdeen noo imow gudaha soo gal wax nala cun nala fariiso. guduhuu soo galay waqtigii dhimatay iyo waxay sameeyeen iyo way u warameen. raashinkaa la cunayay waa la sheekaysanayay. iyadoo saas loo sheekaysanayo ayaa galabtii xaafadii waxaa soo galay marka qaac oo xaafadda soo wada gaaray. gurigooduna waa soo galay. waa qaac khafiif ah oo laakiin la garanaya inuu qaac yahay. markaasaa wuxuu yidhi maxaa waay qaacaan. waxay yidhahdeen qaacana ujeedid jihadan uu ka yimaada oo ah meesha qubuurta jihada qubuurta. galab kasto saanuu xaafadda usoo gaaraa kadib waa la waayaa markaas uu iska baaba'ah. markaasaa wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan soo booqdo qabriga xaaskayga ma i geen kartaan. waa dhowr bilood kadib. waxay yidhahdeen haa ku geen karnaa. markaas kadib way baxeen qabrigii xaaskay tageen waa la tusiyey. waxaa yaa badneed marka qaaca meeshuu ka soo baxay. iyaga marka weligood macnaha tafaasiisha ma ogeen qaaca laakiin qaaca meeshuu ka imaanaya. markuu arkay qaaca meesha ka soo baxayo wuxuu yidhi waxaan codsan lahaa
inkastoo guud ahaan shareecada ma ogola qof la aasay in dib loo faagay inay baahi keento maahayn, laakiin haddii daruuro timaado waa la faagayaa. waxaa dhacday calaa kulli xaal in uu codsaday qabrigaasi maadaama qaaca kan uu kasoo baxay keeda keliya uu yahay. wuxuu dhahay wax uun baa jiri karee qabriga xaaskayga in dib loo faagaan rabaa. calaa kulli xaal culimmadii markii lala hadlay waxaa la yidhi okay waay, qabrigii la faagay. qabriga oo muslimka saa ula socoto wuxuu leeyahay wax la yidhahdo iil. marka qabriga la faago haddana wuxuu leeyahay meel la yidhahdo iil, waa godka ama qaybta la geliyo meydka oo hadhowna markaas lagu daboolo ama barmiil ama looxaan alwaax. inkastoo qubuuraha muslimiinta ee gobolka Minnesota weli aan la ogolaan qaabkaasi wax loo aaso. anaga hadda iil ma samayno, qofkii waxaa la geliyaa oo keliya meel sida boqos oo kale u eg. markii la geliyo godkaas la qoday, boqoskaasi oo dhisan oo samaysan ayaa qofka lagula dejiyaa. markaas kadib baa loo jeediyaa qibladii. markaas kadib wixii oo la waafajin kara shareecada markaasaan samaynaa. laakiin asal ahaan qofka iil lasii hoosgeliyo god kale oo godkan kasii qodan ma jiro. qubuuraha muslimiinta saasay u samaysan yihiin. laxd ayaa la yidhaahdaa. marka laxdigaasi oo oodan markii la gaaray meesha xaaskii ku jirtay ayaa wuxuu markaasi ileen waxbaa ku oodan markaasi ku qarsoon. wixii marka uu ka qaaday mucjiz uu arkay marka oo yaa badan. nabigu waxaa la jeedaa sayidna cumar sheekadan u sheegaya. sayidna cumar wuu fadhiyaa, wuu dhagaysanaya saan idinku ugu sheekeynaya hadda. markaasaa wuxuu yidhi waxaan arkay hooyadii oo fadhisa, waa la fariisiiyey, iyo ilmo yaroo meesha ku ciyaaraya oo dhowr bilood ah. waa intuu dhalnaa waa ilmaha. ilmihii uu soo qabsaday. maamada waa qof dhimatay waay. ilmihii uu soo qabsaday, uu soo qaatay. hooyadiina waa la seexiyey. meeshiyaa lagu celiyey. wixii ku oodnaa qabrigii waa maaragtay waa la daboolay. ilmihii uu soo qaatay. ilmahaas marka waa ilmaha sayidna cumar arkay isagoo la socda aabihiis. ninkan nin dhalinyaro u ahaa waagaas oo yaraan ku guursaday. markaasaa wuxuu yidhi qisada gabagabadeedaan maraynaa. sayidna cumar wuxuu yidhi miigu celin kartaa markii aad baxaysay safarka aad aadaysay oo xaaskaaga aad ka tegaysay ducadii aada akhrisay maxay ahayd? fiiri meesha wax ka fiirinayo xigmadda. lidaalika sayidna cumar waxaa la yidhi wuxuu ahaa faqiih, xakiim iyo caalim. wuxuu dhahay waxaan dhahay markay dhahday ilaa waa tegaysaay ilmahan ilaahay inuu noo badbaadiyo noo duceey. markaasaan waxaan dhahay ilaahu ilmahan adaan kugu dhaafiya ii ilaali. marka sayidna cumar wuxuu yidhi ducadaadi sida ay tahaa loo aqbalay. haddii aad ku dari lahayd aada dhihi lahayd ilaahu ilmahan iyo hooyadiis adaan kaaga tegay intaan kasoo laabanayo ii ilaali, ilaahay subxaana wa tacala wuu ku ilaalin lahaa labadaba. laakiin waxaad codsatayaa laguu sameeyey. marka waxaan sheekadan aan kala soo baxayaa duruusta soo socoto. kadib sheekada halkaasaan ku xiraynaa. kow, ilaahay subxaana wa tacaala isagaa ah midka aqbalayo duco kasta oo la weydiisto. marka qofka muslimka ah inuu ducaysto meesha laga qaadanaya. ducayso ilaahay subxaana wa tacaala, weydiiso waxaad jeceshahay oo khayr ah. mar walba ducayso. waa kow. laba, waxaa laga qaadanayaa markaad ducaynaysid ha ilaawin. bini aadamka marka qaarkooda wuxuu u baahan yahay keliya u muuqdo, laakiin ducadaada duco shaamil ka dhig oo inta ugu badan aada gaari karto inaad gaarsiiso. maalan haddii xaas iyo caruur iyo dad markaasi kula xiriira aada leedahay, ducada ku wada dar iyagoo dhan oo keligaa ha ducaysan, ama wixii aada rabta keliya ha u duceynin.
sababtoo ah ducada waa la aqbala qofka mu'minka. ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanku u dhahay waidaa saalaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan. haddii addoommadeeda ii kaa weydiiyaan nabigaa la dhahayaa u sheeg inaan u dhowahay. waa qurba cilmin. ilaahay subxaana watacaala u dhowaan uu ogyahay wax walbo addoonkaas uu rabo. waa khabiir. waxaad ku fikiraysa uu ogyahay intaadan sheegin ilaahay subxaana watacaala. marka ilahay wuxuu leeyahay addoonkayga wuxuu rabo hay weydiisto. hadday macsi ahayn oo ilahay wax weydiisato qalbigaagu nadiif yahay ilahay wuu ka aqbalaya. waa 2. 3 waxaa laga faa'iidaysanayaa in qofka muslimka ah markuu maqlo arrin cajiib ah in arrintaas uu ka faa'iidaysto. sayidna cumar wuxuu maqlay wuxuu dhahay wiilkaan la yaaban tahay inuu ila ekaaday. wiilkaan aad la yaaban tahay muuqaalkiisi muuqaalka inaan la kala garanayn. wiilkan waxaa kasii yaab badan oo cajiib ah qaabku ku dhashay. marka wuxuu yidhi ii fariisuu dhahay marka ii sheekay. sayidna cumar marka inkastoo uu jeclaa waraa'ib alqisas sheekooyinka cajiibka badan. marka sheeko kasta oo aada maqasho inay cajiib leedahay ka faa'iidayso ha ka degdegin. isagoo howlo badnaa sayidna cumar. 3 waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa madaxdii hore oo ahlu khayrka ahaa siday u ixtiraamaan dadka caadiga ah. sababtoo ah howlo ayaa lagu mashquulsanaa. markay dhammaatay si gooni u salaamay. haddana wuxuu arkay in maaragtay arrin yaab badan ah in uu ka faa'iidaysan karo. uu fariistay waqti uu geliyey. marka dadka madaxda ahlu khayrka waxaa lagu yaqaanaa dadkooda ay waqti geliyaan. halkaas oo laga faa'iidaysanaya. waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya qisadan aan kusoo gabagabeynayaa qofka muslimka ah si ducadiisa loo aqbalo inuu sameeyo shuruudaha ducada lagaaga aqbalayo. shuruudahaas maxaa ka mid ah? ninkan waxaa la yidhi wuxuu ahaa nin ganacsado ah laakiin xalaal quuta ah. marka waxaan kusoo gabagabeynayaa ninkii rasuulku yimid alayhi salaam oo dhahay waxaan rabaa ducadeeda in la aqbalo. rasuulku wuxuu yidhi kasabkaaga wanaaji, xalaal quuta noqo. sababta qof xaaraam cunayo ducadiisa lama aqbalayo, salaadiisa lama aqbalayo, tawbadiisa lama aqbalayo ilaa qofka tawba nasuux uu la yimaado maahan. tawbada lama aqbalayo waxaa ula jeedaa hadduu ducaysto oo ilaahay subxaana watacaala dembi dhaaf uu weydiisto. duco waaye dembi dhaaf markuu weydiisana lagama ogolaanayo. laakiin tawba nasuuxa hadduu la yimaado toobad dhammaystiran ilaahay subxana wataala markaasi qafuur raxiim waaye. qisadaasi waa qisada koowaad.